Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan. Qodobada warkeena ugu doorka roona waxaa ka mid ah Sweden oo soo saartay gawaadhi casri ah. Wadamo aan Islaam ahayn sida wadanka New Zealand iyo wadanka Canada oo u hambaliyay ciida Islaamka Ciidul Fidriga. Qodobada kalena haynana waxaa ka mid ah mudaharado xoogan oo ka dhacay wadanka China kaasoo laga soo horjeedo labada sharci ee ka jira wadanka China. Qodobada kalena haynana waxaa ka mid ah gabadhii afduubatay Al-Shabaab taasoo aan idinka hayno warbixin gaar ah. Ku soo dhawaada warkaas oo fiisan. Halkan warka kala socotaana waa ogaalka macluumaadada TV. Initiating system 1. System 1 loaded. Isku soo laabasho wacan oo wanaagsan. Halkaad warka kala socotaana waa ogaalka macluumaadada TV. daawade hadduu yahay channelkan meel kugu cusub fadlan subscribe noo saar like share si ay nagu noqoto dhiirigelin. Taariikhdu maanta waa 2020 bisha shanaad 24keeda. Shirkad ku taala wadanka Sweden ayaa soo saartay gaadhi casri ah kaasoo loogu talagalay in laga hortago xanuunkan fidaya ee COVID-19. gaadhigan ayaa ah mid gudaha laga kantaroolayo misana aan ahayn mid uu qofku muuqan karo. Marka uu kugu soo socdo ama uu kugu soo jeedo waxaad moodaysaa inuuna qof ku jirin misana laga kantaroolayo remote, balse waa mid qofka ku jira aan la arkaynin. Qofka ku jirana uma baahna inuu xidho face mask. gaadhigan waxaa loogu talagalay in laga adeegto meelaha mashquulka ee marketyada ah. qofkuna wuxuu ka maarmayaa face maska. gaadhigani wuxuu jirayaa saacadii 5 kilomitir. iminkana xagga wadanka New Zealand. Ra'iisul Wasaaraha New Zealand ayaa u hambalyeeyay Ciidul Fidriga ummadda Islaamka ee caalamka. Assalamu alaikum. I'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Eid al-Fitr. Assalaamu calaykum dhammaan muslimiinta ku nool caalamka. waxaan idin rajaynayaa inaad ku ciidaan bashbash iyo barwaaqo. waxaan ognahay inay tahay maanta maalinta Ciidul Fidriga taasoo ah mid idinka muhiim idin ah. waxaan kaloo ognahay xanuunka COVID-19 inuu wax u dhimayo farxadiina iyo isku soo bixina, balse waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo gaar ahaan wadanka New Zealand iyo muslimiinta ku dhaqan caalamka. waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo. wadanka New Zealand hadda waa mid degan oo nabada kadib dhibaatadii ka dhacday. waxaan la dagaalamayna aan ka soo horjeednaa midabta koorka iyo diin nacaybka. tani waa ra'iisul wasaaraha wadanka New Zealand. Assalamu alaikum. Today Muslims in Assalaamu calaykum. maanta waa ciida Islaamka waxaana ciidaya dhammaan muslimiinta ku dhaqan caalamka iyo Canada. ciidu waa maalin taasoo ay caabudaan bulsho gaara, balse waxaan u hambalyeynayaa muslimiinta ku dhaqan caalamka. waxaan leeyahay nabad ku ciida. wadanka Canada wuxuu la dagaalamaa muslim nacaybka taasoo loo yaqaano Islamophobia, balse waxaan leeyahay ku ciida bashbash iyo barwaaqo muslimiinta ku nool caalamka. waxaan idin leeyahay ciid mubaarak. kani waa ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau. iminkii xagga iyo wadanka China. kumanaan qof oo ka soo horjeeda labada sharci ee lagu dhaqo wadanka China ayaa isku yimi laamayada magaalada Beijing ee wadanka China. labada sharci ee lagu dhaqo wadanka China ayuu mid ka mid ah dhigayaa dadka Islaamka inaanay waxba xaq u lahayn ama ay yihiin dad argagixisa, balse dadkan isugu yimi ayaa ku qaylinaya in laga saaro sharcigan muslimiinta aan waxba ogolayn kaasoo loo yaqaano security law. dadku waxay ku qaylinayeen security law waa in meesha laga saaraa. gabadha islaamta ee loo aqoon jiray Salvia Romano iminkana loo yaqaano Aisha ayaa gaadhay wadanka Talyaaniga kadib markii ay afduubteen kooxo xaq jirin oo kana afduubtay Kenya. gabadhan ayaa la socotay hay'adda khayriga ah taas oo caawisa Afrika, balse waxay ku noqotay wadankeeda Talyaaniga. waxay kala kulantay soo dhaweyn heer caalami ah iyo dadkii faamiliga ka maqnayd waqti badan.
gabadhan ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay diinta islaamka ay sheegtayna inay qur-aanka aad u taqaano wax badanna ay ka fahantay diinta islaamka balse waxay sheegtay inay sii wadayso shanteeda waqti ayna ahayn mid halkan ku daynaysa balse ay sii wadayso dadaalka ay ugu jirto haysashadeeda diinta islaamka. waxaan war idinka haynay dunida daafaha caalamka waa naga intaan ku kulmi doono mid lamida waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak. Initiating System 1. System 1 loaded.